qalad weyn baan u arkaa waliba waxaan filayaa in la yidhi meesha meel ay bulshada ku nasan jirtay magaalada dhalinyaro ay u badan tahay meel la fadhiisan jiray oo markii sigaarka lagu cabbi jiray wahay haddaba meel lagu cabbo meel la fadhiista ma leh meheradaha dee ninkii shacabka baa tegi kara oo fadhiisan kara lacag baa lagu fadhiistaa halkan meel dawladda leedoo lagu nasta oo markaas soo daasho kuwii jaamacadaha ka yimi kuwii magaalada ka yimi gidda fadhiistaan bay ahayd qalad weyn baan u arkaa halkan in la dumiyo ra'yigayga ahaan sidaan anigu u arko waxaan u arkaa burburkan de kolley si macno darra waxba looma burburiyo hanti culus iyo lacag badanna way ku baxday marka waxay la tahay burburkan in design kara ama wax ka qurux badan uun la yidhi de ha laga dhigo midda kale bulshadu markay aragto wax qaldan inay yidhaahdaan maaha waxbaa qaldanu wixii qaldan de sideeda looga jawaabaa waa in waxaan ku yidhi de madaxda wax loo sheegaa de dawladda halkii ay dhaliil ku leedahay in shacabka uu caadi u taabtaa la doonayaa uu ka falceliyo laakiin hadduu ka falcelin waayo daawasho sidii in meeshu tiyaatartay marka halkan tiyaatar maaha in la daawado maaha waa in laga yaro war sugaa ka bacdi marka ay wax soo baxaan la arko weji kale in loo dhigay in markaa shacabku ay ka dareen celiyaan oonay mar dambe dhici doonin wax shacabku leeyahay in lagu tagrifalo aanay dhici doonin ayaa bulshada looga baahaya laakiin bulshada loogama baahna inay meeshu tiyaatarto la daawado qof kastaaba waxaad moodaa dadkii inay reer hargeysanimadii ay ka tagtayoo qof walaaba wuxuu koranaya haddii aad tiraahdo halkaas ayaa la yidhi maxaa iga galuu koranaya marka waxaan u malaynayaa dadku inay reer hargeysadii saxda ahaydba aanay wada ahayn markaan waxaan oran lahaa reer hargeysadii dhabta ah intay yimaadaan wixii ka qaldan caasimadda ama lagu takrifalayo ha iska qabto gacan ha iskaga qabto laakiin ha iska daayaan maxaa iga galaya waxaa maxaaniga iga khuseeya taa looma baahnaan leeyahay anuu reer hargeysa khayriidi xalay ayaa la burburiyey iyadoo aan weliba la ogeyn bal sideedeen maxaad ka leedahay waxaan u arkaa anigu si sax waayo meeshu may ahayn sidii loogu talagalay sidii loogu talagalay way iska bedeshay waxay ahayd si oba sidoo qalada ayay u shaqaynaysaa moobilada la soo xado dadka garaabada cuna dadka daraagiska ayaa meesha ku urursanay anigu shakhsiyan 100% waxaan taageersanahay in meesha la baabiyo haddii la dhisayna marka library-ga la furo dadka wax bartay buugaagta akhrisanaya inay fadhiistaan laakiin aanay fadhiisan dad garaabo cunaya dad moobil soo xaday in la baabiyo sax ay ku tahay fairness imtixaankii in caasimadda ay ugu hooseyso kaalmihii la soo yeedhi sidaad u aragtaa see fikirkaaga runtii horta taa waxaa ku shaqaleeya wasaaradda imtixaanaadka qaranka jamhuuriyadda somalilan anuu halkan uga mahad celinayo anu waxaan ahay arday maanta fanfoor ka baxay degmada gobolka saaxil berbera gaar ahaan dugsiga sare ee dawilweyne boarding secondary school oo aad baan u faraxsanahay waxaan ahaa ardaydii ugu sarreysay gashina A+ imtixaanka keenay horta runaantii marka la eego gobolada kale iyo caasimadda runaantii caasimadda waxaan odhan karnaa waa caasimaddii waddanka oo aad iyo aad bay taxanadooda loo ilaaliyaa waana dee xafiiskii qaranka ku yaala markaa sidaas darteed baa loola googaaya baan odhan karnaayo ay gobolada kale uga sarreynayaan mar walba adigu arday ka baxay baad ahayd oo ku guulaystay imtixaankii bal in caasimaddii magaaladii aad joogtay la idhaahdo kaalmihii ugu hooseeyey sidaad maxaa dareentay wallaahi runaantii horta markan anuu maanta magaalada hargeysa joogay saakilinka hore imtixaankuna hore iguma soo bixin runaantii waxaan arkaya arday asxaabtayda oo imtixaankii gashay oo wada dhiib keenisay ama D+ ama D keliya taasina wax laga xumaado oo anugu horta eedayn mayno wasaaradda waxbarashada laakiin waxaan odhan karnaa waa dhanka ardayda oo mar walba ardaydu qishis ku hadlaysaa sida gobolada kale iminka gobolka berbero kale inkastoo dee ilaahay maaduu imtixaanku iskaa si fiican u baxay ardaydii uu noqday gobolka kaalinta labaad soo gala iyo kaalinta saddexaad markaa la sameeyey dhowaan bay ahayd haddana dhaqaala ku baxay cadad fara badan leh haddana waa la dumiyey dee waxaan arkaa inay qorshihii lacagtii la geliyey markii hore inay ugu habboonayd hadday maantaba la duminayo in meelo kale lagu sameeyo oo la geliyo oo anfac leh markaa saasaan arkaa aad iyo aad baad mahadsantahay.